shirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay waxa weeye arrin nabadgelyo muxuu ahaa sida dadku yani maartay arrinta nabadgelyadu waxay ku saabsan tahay hadal muxuu ahaa hore yani salaadiin iyo muxuu ahaa cuqaal iyo xildhibaano iyo wasiirro iyo ka soo yeeray oo aad moodaysay in muxuu ahaa muxuu warbaahinta ama dadka deegaanka ee walaalaha ay deegaanka iyo dhulka wada yaala muxuu ahaa in colaad gelinayay u dhadhamayay ama sida u dhawaaqay ayaa waxa halkan jawaabteedii ay odayaasha iyo salaadiinta iyo xildhibaanadu u soo fariisteen in ay ka bixiyaan jawaab tooda oo ku saabsan in dadku iyo nabadgelyada la dhowro in muxuu ahaa hadii uu kaleeyahay dadka walaalaha aan colaad la gelinin in hadii uu kaleeyahay muxuu ahaa si wanaagsan oo muxuu ahaa wada dhalasho iyo dadnimo loogu wada dhaqmo dhulka laakiin waxa la abuurayo la joojiyo hadallada ka soo yeeraya buurta Siimoodiyeed iyo degmada Bakayla saasan colaadeed baa ka kacday hadalka wax kiciya colaadina faa'iido ma leh ninka aan garanayna ku roorayaan colaadayna wanaaga Allah tusan isaga sida wanaagsan yaan isagana ugu yeedhanaa anoo kortay mayne waxaan leenahay haddii taariikhda buurta laga hadlo Siimoodi reer nuur baa deganaan jiray yaajada taalo weligii reer nuur baa lahaa cid kula muransan hore looma arag ولا يستمد على مقع فرد كذا إلى ورا النور نجي تاريخ عنه قوم بمشي قلنا بورصة إلى كلولو يكوهي يبضع يسلخ أنت عسقلية دي بيكجران يا ما هي هوري سلوغان تيكجران ولا شيء دورا ولا صوت دورا تذكي عين كاها hadday dad walaalahoodii meeshii ugu yimaadeen oo la degaan wada degaan inay maanta ilaahan annaga leh ee codbay ficnayaan codkaas wuxuu u baahan yahay in la gaaro la baqtiyo nimankii hadalkaa yidhi ha hadlaan hadday nabad doonayaan ha yidhaahaan waxbaan naga qaldamay raalli hada naga ahaw dadkii caynka ah haw sheegaan dadkii dhulka lahaa kuwii la deganaa كل ما يسوقه الرجال كل إيمك الدكان هاو سيجارو هالرجال جليان هدية إساس يدعي ويدو أرنتاسي ويساعد تهلو قال شلايبا وأنو اللي يوحبك بتكمل جرني يوم وراني أنت أنا بقول لك مقالة كتمت يقول لك هذا الكواليات وهذا وعليه هذا كيني كنو هذا النبضات بان هيناي نبض موقع عليه هذا تاودي تلعب مدينة كتركها دولة بيجي ما كان تكهر بيجي ما حديقة الحلبان نبي وسرنا وحلاها وأروح على الشيء سين يروح على الشيء سين إذا في مجال كتير ما أدري هو بابا هيسار ولا ملك يجينا ماشي كم يجي يسولون بدور يروح لها كشانيو ملك خلاص ما بعمر باب ما كشانه إذا فينا بلوخا تاريخ دي سياسة وهذه بقول نقول كنا لا أصلاً نبض بالجورة نبض بالجورة الدولة دي تطبق ورميشة وحكوجرة ووحدك كهدية بدينكم الدولة هذا صوك الشين تكاد حكومتين بوكات حياي دنقولية همرين ميل قولية وحي هاي أما استريشي كان مرة هيدي كقبلانك إنا دكا ويا دارو تراوليات دقانا ما شرط إنا مو يعلم بها عندي كلا دولة سنين ويا يعلم بها إلا سوي ما بها الدولة يعني باكين عدين ديني ما يصير لقوة تشرب حتى يحلو بناقة الصمعية لكن عقل كلام بوه عدل تأثير الضبط عشان دي بكون نقطة هي من أول حالين هل جوج هي الدولة هم حالين لنا هل جوجو بالدولة هاليو هذه الدولة تبع أن ترى شو الدولة يهرب ورا ترى شو يمدى حكوا بهذا عن وحي دولة هالشيء وحي وضية وحيسي وحي دولة والله رسول معه أما جنا يحبق وحنوشة هذيك الإسلاف المريض
إسلاف ما كهذنا أنت إسلاف أنا إسلاف بدون نبض بدون دولة قريبة أقول لهم دوننا تذكر ما يشاء أقول لهم لكن إسلاف هذا غير اللي ماشي إنهم غير اللي حتى يانا سلاح الشيء هذا كي أخذ الله استغفار يا وصلا annaga shirkayagu wuxuu ku saabsan yahay baaq nabadeed buu ku saabsan yahay sababta balaayada lama koolkooliyay waa la iska diidaa bahasha iyadoo ku qasabta mooyaane anigu waxaan leeyahay walaalahayo waxay yidhaaheen sida suldaanku yidhi dib ha uga noqdaan sababtu maxay tahay ummad baa meesha wada degan waa wada walaalo wax iskhilaafa oo anagu horoon haynay ma jiro idinkuun baa waxaan keenay nin magaalo aduun baa keenay kan noqon leenay ninka magaalada waxaan wado ninka wasiirkii wuxuu u dhaxeeyaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta Soomaaliyeed meesha doonto baa deganaatay iyo wasiirka reer wasiiruma ninka suldaankii halkaas oo karu jooga nabad baa isaga laga rabaa nabad baa laga rabaa badan waayahay waxa la yaab iyaduna le dhaliyaab waxa la yaab waxa le ninka agaasimaha macdanta ee u dhashay luqaya meeluu garanay wax ay kaas inuu ka yira oo cid baara u yira waanu ka xunnay hadda shacbiga reer nuurna waanu ka xunnay waanu ka xunnaan leeyahay waxa kale oo leeyahay dawladdu iyada dalka xakunta waa inay kolkay garnaqayso inta dhulka degto dhan oo wada joogta garnaqda in ciidan loo garnaqo maaha aniga hadalkaygu ma badna annagu haddaan beeraha reer nuurnahay nabad iyo wanaag iyo wada noolaasho rabna wanaag iyo wada noolaasho tafiirta keena colaad iyo qurunku ma keeno wanaag anu hadalkayga waxaan kaga baxayaa annagu haddaan reer nuurnahay tala nabadeed baan ku hadlaynaa yaanu ciday taabanayso ee walaalahayaa ee isa sheegay intay meesha deganaayeen anigu waxaan hayaa taariikh 45 buurta imika la isku hayo odayga cibratuku halka buurta kugteeda ayuu nagu tagay gulaysaha kiis loo diray ninku wuxuu ahaa Ciise Muuse wuxuu yiri buurtaasi cid reer nuur ku qabsata waa cid ka gardaran buuri taariikha ay kaasa la soo maray ninka xildhibaanka ninka wasiirka iyo ninka agaasimaha Soomaaliland buu ninka wasiirka oo dhan buu mas'uul ka yahay agaasimuhuna waa saasoo kale dawlad waxa loo doortay dawladda Soomaaliland oo dhan inuu ay u yahay wasiir inuu yahay agaasimo ninku hadduu garan waayo xildhibaanka dhammaan siyaasi wadii ninku hadduu garan waayo meesha uu joogo oo qolanimo ku soo noqdo ee kolka maaha mas'uulkii dawladdu diratay maaha dawladdu Soomaaliland nabad bay ku caanamashay nabad baa taal imiga waxa socota qolanimo inay socoto qolanimana waa tii wax dumisay Soomaaliland oo dhan waxaan leeyahay war qolanimada hal la daayo wasiirada qolanimada wada dadka kicinayana dawladdu waxa uu sheegto madaxweynuhu waxa uu sheegay oo ka daaya dadka shacabka isma diidana ee dhulka degan taariikhda buurta haddaan dib ugu noqdo cid maanta sheeganaysa dagaaladii ahligii ka dhacay ilaa xamar ee dhulka oo dhan rogmaday way soo baqeen hoos bay oo leeyeen horteedba oo li jirin baqdin bay ku yimaadeen halkan ugu soo degay annaguna nama kaxay sidii bay u degan yihiin waa la isdhex degan yahay gaar iyaguna muhiimka waxay degan yihiin ma jirtee waa la wada degan yahay waa la isdhexyaanay ragii sidaa baqdin tawiid ee buurta u soo degay ya hadana sheeganaya dadkii isdhexyaala wax kala sheegaya waxa kala sheegayana waa reer magaale waa wasiirada waa agaasimayaasha waa xildhibaanada dawladdu waxa uu sheegto inay dadka u mid yihiin ha u sheegto dawladdu waxa ay ku dhawaaqeen ay ku hadleena wax munaasaba maaha waxay ku dhawaaqeen annagu gali mayno waxay ku dhawaaqeen ay yiraahdeen annagu gali mayno
colaadii Somaliland dan maaha annagana noo dan maaha cidnaba u dan maaha maanta Somaliland meel kastood marto dee nabad baa lagu barayaa inay Somaliland colaadi ka dhex kacdana ma fiicna cidda kicinaysana ma ogolin hal laga joojaan leena colaadana waxa keenay ninka Shiinaha buurta la keenay iyaa keenay waan arkayni ninka Shiinaha ee buurta la keenay deenu ma lahayn waxa khayraadka buurta ku jira haddii kolka la soo saaro sumbaa ka imanaya oo dad iyo xoolaba way ku dhimanayaan fikirka iyaga kuma jirin imigaasa taasa jirtaali wixii dadka iyo xoolaha dadka dhulka degan sunta ka soo baxalaynayaana dee macdantaas wax macdana ma noqonayso dadkana dani kuma jirto Shiinaha waxaan leenahay wuxuu buurta kala baxay oo ka qaaday ee raga waday annagana waxaan la lahaa dadka iyaga waxa lagu lahaa shicibka waa ka wada tashan doona waxbaan isweydiin doona waxba meel inagala tagayno horta balaan ogaano iyo la lahaa wixina been buu noqdo waxa qolkii wax soo baxeen ay noqotay annagana meesha xuquuqa oo waxaasaad leedihiin waxaana waa meeshana waad ka guuraysay xuquuqdaana waad leedihiin dee wax la yidhina ma jirto dee ma nimanka wasiiradu baa dawladii waxay noqonaysaa nimanka wasiiradu waxay doonaan inay sameeyaan gobolka awdal waxba ka socda waxaasina dawladda ragga dawladda ku jira ee galbeedka gobolka awdal uma waxa kiciyay waxaan leeyahay walaalnimo iyo tolnimo inaad dadku bulshadu ku wada taal baan anagu ogolayn haddiise la yidhi laylama la meeshaasi waxaad leedahay ama dawladu yeedho ama samaroonka u yeedho ama waxgaradka Somaliland cidda doonto u yeedho garbixiyaan ku ahay gogol nabadeed aan ku wada hadallo inamadayda iyo kayga ordayaba anigu nabad baan ku xakameynaya laakiin ragga soo dadajinayo war gogol nabadeed aan ku wada hadallo hadday sidaas dhici weydo idinka ka masuula wixii ka dhaca waa qolada odayaasha iyo salaadiinta durrada hadlaysay weeye waxaan ula jeedaa waxa kaloon leeyahay sida odayaashuba ka jira dhulku maanta dawladdu xukuumad joogta xukuumadu inay waxa weeye dadka u dhaxaysa weeye dadkay u dhaxaysa nabadgelyada ilaalisa ninka hadalkiisu dalabta leeyahay waa inay qabataa ma qabanayso nin waliba Somaliland waxa ka muuqata in nin waliba madax bannaan yahay oo ninna la qabsan haduu wasiir yahay iyo haduu agaasime yahay iyo haduu cidu dooraba adeynana Somaliland ninna qabsanin baa ka muuqata oo ninba wuxuu doono ku hadlo hadaanay sidaa ahayn sida odayaasha qaarba ka dhawaajiyeen meesha tala wax la naga galiyay ninka Shiinaha waqtigii uu yimid nin reer nuur oo tala laga galiyay ma jirto dhulkii dadkii dhulka lahayd deegaanada weeyi looma sheegin tuuga lagu soo galay tuugadii heshiis baa lagu galay lacaga la bixiyo waxa la noo sheegay 5,000 oo lacagta Mareykanka ah 5 milyan oo lacagta Mareykanka ah halka lagu bixiyay baa leeyahay waxa weey waxa kala qaatay dawlad iyo shicib baa kala qaatay arintaasi waa dhaweyd bay nagu soo baxday waxa sida ay odayaasha hore qaarkood ka dhawaajiyeen taa waxaan dawladda kale magdhow waa ka rabnaa arrinkaasi arrinkaa lacagtaa Shiinaha laga qaaday waxaan ka doonaynaa ninkaa Shiinaha meeshaa soo galay maxay meesha uu ka qaatay magdhowgeegii inuu gacanta nagaga soo ridaan ka doonaynaa kow taasi waa mid waxaan leenahay dawladda war waxa weeyaan nabad baan ku caanamaa nabad baan doonaynaa arrintaasi soo dhaweeya soo dhexgala sida ugu dhaqso badan u soo gala arrintaasi annagu intaan xakamayn karno waan xakamaynaynaa laakiin waxaan leenahay waa dawladay dee
laydinma afgaranayo arrinkaa raggaa haddii wax laga qaban waayo sidaa u hadlay wixii ka yimaada meesha idinkaa ka mas-uula waxa weeye shirkan horta waa shir nabadeed waa shir baaq nabadeed weeye anu saddex qodob oo yaran baan ka hadlayaa mid waxa weeye qoladii hadashay ee mas-uuliyiintii ayaan mid leeyahay midna dadka shicibka ee degan baan leeyahay midna xukuumaddaan leeyahay mid waxaan leeyahay nimankii ka hadlay ee maalin wasiirku ugu horreeyo ee lahaa cid u daba fadhiisan mayno kii oo ka hor qiranaya madaxweynaha hortiisa uu ku leeyahay madaxweyne annagu cid u hor fadhiisan u daba fadhiisan mayno ma cid buu daba fadhiyey cidduu sheegayaa waa ayo halkaasoo dagaalka ma wado cid sow looma hanjabayo cidna kuma hanjabayo waxa weeye anu waxaan leeyahay madaxweynehana waxaan leeyahay dee waa wasiirkaagii ninkaa iska horgeynaya dadkaagii shicibkii waa wasiirkaagii anu waxaan ku leeyahay wax ka qabo haddaad wax ka qaban weydo dee waxa weeyaan faraha la iskula tegayaa ta kale waxaan leeyahay dadka shicibka ee meesha degan waan awalba waad wada deganaydeen waa walaalihii iyaan horta la isku kiindiroon oon dadka shicibku ereyadaasi unu raacin oo ninka shicibkeesha maanta la leeyahay anaa ku ag jooga ee cid kaa sarraysaa ma jirto cid kugu iman jirtaa ma jirta lihi ayuunu isku qaadanin inuu isagu maaragtay libtii hayo waa libmahay sida dadkii walaalaheed la deganayd la walaalahaw baan unu leehay dadka shicibkana waxaa leeyahay waa nabadiinna iyo wanaaggiinna ilaashada buurtana dee horena waa loo deganaa dibna waa loo soo degay kuwan kaama sheeganayaanbe si nabad oo walaalnimo ah ku wada noolaan leeyahay wixii dhibaato xukuumaddana waxaan leeyahay xukuumadda ha u soo dirto khubaro caalami ah horta waa khayraad waxa meesha ku jira khayraadka waxa iskale ummadda Soomaaliyeed baa iskale nin kaliya gaar uma laha qolo gaar uma laha qabiil gaar uma laha waa khayraad ka dhaxeeya dadka Soomaaliga haddii shidaal laga helo koonaha shay iyo haddii koonaha shay laga helo waa khayraad dad ka dhaxeeya khayraadkii dad ka dhaxaynayay sidii loo wadaagi lahaa ee dadka meesha deganna looga maartay looga taageeri lahaa in la sameeyo weeye xukuumadda waxaan leeyahay inay u soo dirto dad khubaro ah oo cilmi baaris ku samaysa oo deegaanka dhibaatadiisa iyo aasaaskiisa ogaada magdhawo waxay dadku helayaan ciddii wax ku noqota xoolaha wax ku noqda waxaasoo dhan lagala tashado dadka deegaanka oo loo sheego ayaaba loo baahan yahay marka waxa xukuumadda waxaan leeyahay waar waxaa la isku leynayaa waa khayraadkii hantidii dadka ee qabiil la isku sheeganaya qabiiladu yaana isku sheeganayn aduu soo dhex galo bal dhibaatada iyo waxa ka imanaya meesha ogow waxaan haddaba leeyahay xildhibaanada iyo agaasimaha iyo wasiirka ka hadlaya ee la cidna u daba fadhiisan mayno yaa dee waxa weeyaan waa daadanaysaa daadashadaas halkay ku gaadhsiisaad leedahay anigu kama hadlayo موضوع فوق أنا وحكي يا موضوع تاريخي أو قبل ما تدبسنا فايل كاج عن تانكو هيا وحوي بورتها سيدي قبل ما تي يسيدي يهالكي مرتي يهالكي ما تتاجنتها سيد قبل ما تروح هاي نكى جاني نهرف الرياح إنجنير محمد بيجاني أنا جا يا إلهي أنت كنت كويسي سميي كمبني ليرهضو RRC كمبني جالسي وحا ليرها ريج ريسورس كمبني وحا وزيرها الله محرستيه دكتور قاسم شيخ يوسف هذا مكان دلونا الشقادة لبدا يكون يستقال كبهي وحا كبلو بي وزير كنا يقول تريي وحا صومرتها بروسسكي لغو سبيسيني ليزك دكتور الله نحرسته قاسم شيخ يوسف وتا شهادتي marka labadii 2009 aan biloway warqadii kale cadeynayay iyadana xeer ilaalinta waata xeerinta guud warqada aan ka sameeynay waxay ii bilaabantay 2009 isla markaa waxaan keenay Chinese bank keenay labada nin ee imika adduunka qasaya yaan keenay waxaanu wasaaradda la hortagnay inuu sameeyno wax la research cilmi baaris buurtaasi moodi waxay ka kooban tahay
sideetan kilomitir oo galbeed iyo barya balacaana 30 kilomitir oo waqooyi iyo koonfur oo British iyo daddan maqashiin meel kooban ma research kan sameeynay waxaan keenay khubaro Chinese ور كستوى إيجن لوكيشن كان واشيجن GPS وحيراو عصريين oo lagu qiyaaso dhulka yaa wadani waxaan sameeynay inaanu amuuda qaadno ama dhagax qaadno oo u jirno China la kugu weyn China saddex wiil bay naga maqaanaysaa wixii ka soo baxa wasaaradda siina كوبينا أنا كاريني كوبينا وزارة السينما شركتنا واحد كوبينا واي معناته والله بقى وكيمستون وتقاليدها إيو إندستريالستون أنك وحن هذين إندستريالستون ومعدنتها كل توح إلى لد كوبر زين ألومنيوم ومعدنتها براها والشلاه واوي وحا كيمستون كانوا مرهدين وحرهدين القوى إلى هاي الملكة وحبوبي نمعوا أفريقيا ولا كفر صوماليا كيكسي أفريقيا ولا كفر يودي هل كان مركي مريسو ريسيرش كي وانا بيسنا سدح سنة كله بين ريسيرش كي هكي تشاريس كيو حرهدين إنجينيرا واحد ربنا إنه وشد خينه وشد وكارثي ما هو لكن وشده وإن الحلقة هل كان قوي سيها فعلا يا بر وورتجيني يا جماعة إلى كاسان قليلا كريبوتي أي صفرين وحكوت له حرا توستيك وحوين وصن ريبوتي ما قاري وزير كانوا جاي على محل ثاني كي قاسم جبر كاو دتي لكن وزير كانوا شقين وحاو إنجينير حسين ووزير كان حسين دعاء حسين محمد دعاء لكن ما توزير كان معلنته هي تمرت وهو هذا لي وحنقول وحن أي وضع رجلي أنا كمسلم أنا كفيرة ووحقر حتى وحكينا والديان كانوا بابايا ويوراعي ويوراعي تحسين إنجيل الحسين ويوراعي ويقول هذا ساتاي اليوم حاتلا وحن أنا قلت تيجي وحنا سكوت جدا وحا شقدينا أريد وكفريست صوت وكفريست واسطة يقول شيء قليل حاتلا المستافرين ويقول راعي والمستافرين الله هل كان يصيروا باي أيها والمستافرين وروح كان أنا سبب كان تي أنا قرن معي 2 years كي قلت به والشقيني رجل من الشيء ركعت حتى لا تهرع والهرية وهي كانت لكن هذا كنا في شعره ديارو مين والسر سرنا حقنا في الشيء ديارو مين لكن وحني شقيا والله كان هلا كان هذا كمسؤول كهلا ما كم إذا كنت شلت الدولة وزير كنفتيسي شيء يسعني استبدل باخذ عين وحنقول وار حتى رجي صانع ذن واحد سميسا تصدق هتوي هاي قفل أو هلا قفل أو قيقاس يبعي هديك لا دكتور كهرب بكرة مسكون دي مريا واي يقولوا أتني كيف كيف ويا ذا تجيس باكر وتصدق هلا حلو فكاني لكن أدور كتر كيني تري وحلا يروح على روحي كرا 2 مليون دولار ويصاب غير وزيك يمدي و2 مليون خير بحنا سأقول عليه مويه وشدي والله بالعربي وشدي والله استعري تدكين ديجان الله إسماعيل وحو كهله يوحي يدور هنا المغرسين حتى ناقول لك تتلفين ناقول ديجان كم وحي الشيء اللي صبح كما هذيك وزير كان يكره لا دي شيء لا سعيد وحوري شركة ما صنعي شركة واحد لا بوري ARC وأفريكان ريسورس سنت كامبري مجيء شركة إلها RRC وبا إيه لقدي شركة هذا تجيس شركة دي وبا إيه على لقدي أفريكان ريسورس كامبري شركتها سي waxa la ogaaday oo adduunka ogaaday taanu kafiil baan China ka qaadana wax ka qatay waddanka ka qaatay Soomaaliland dawladda ka qaatay yakuna kafiil ka basraystooni kafiil oo Soomaaliland ba ay wartan baabi
ARC كقول أنا ولا السعودية لكن إنا خشيف بيان ووحي مغضي يجي يقول لي الله بس سنوية ها والله بس سنة بقرأ بين بشيء لكن بحقري فاي كان عص ARC كطال وقريه إنه قرينا ماهي تيجان كانوا واحد الشقي 6 سنة تتحدثن أنا قلت كرساري ولي بما كرنت ولا شيء كوان كذا شيء نين على شقيني نجي يكان شقيني يكان شقيني كوان كذا شيء أنا نيجي استوعبني ديار ما هي وحيقته كوان شقيني واحد يك ما كرساري ما تنسى هذيك كرساري يا واحد كيران بيني أنا واحد كجبهي وروح ربنا نبت عدنا سيدا وشيء الله صار يسمع ينكي نبت جديدة استقاعد الحكومة هذا غير مصدق وعلى هاي دليل مش زي الأولى اللي كانت هو قضب هم قال لي قضب الله كمان لي قلت لي محمد قول خيرتي في تركيا قال لي كمان لي والله بدي يدق عمود ركب سد بالجوك سنية لك علي حمد لي باكي واحد قد جي بقول كيف طبعا طبعا كأي أنا قالوا نقول لي سنة طبعا waxaan leeyahay xukuumadda maxamed siiraanyana anagu xukuumadda iyada waan taageersanahay systemkeeda kama soo horjeedno haddaanu nahay beesha reerno aanay sheegan karin runtii ma sheegan karaan taariikh baa la hayaa taariikhna bannaanka la soo dhigaya jad ciddii meeshaa degi jirtay iyo ciddii marti ku ahayd ilaa imikana degan waa la kala ogaan doonaa runtii ودولته مركز عدالة كل شيء يسوي يروح كلو يتوي لا يقول واحد لقى طول آخره قرنا اللي قبل ما سيد كريك وحنا الشيء ده إن أريكا هطان لقى فيرسل أريد أسفرا كبحث وتحط الله أريكا هو يسوي له تحقيقية ومهم شركة هذا ما طلقتي وتصالين ونبتكليتون وتلك هو مركز سول دوريو وأنا دبعت الدين وحنو ملاينا يا ده سلطان وبربها كاتشوجو كل كي لينو طلاب إذا ما لك سوق بحي قبل تنا إذا ما كلام أنا بصوت طبعا ملاينا مرجع وحاسب حلوت وقاعد كرمها كل قوان نبض تتكيان فود اللي سكوا قليل عرفت أنا ويسيدك دقة وأنا لو قاعدة أنت أصدق بكبرها